السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا سهل يونيفرسيتي إن شاء الله قيبتان وحينو كو إيجي دونا هدية بيرادو marka iska diiwaan gelisad koorsooyinada advanced ka aan bixino dibloomoyin baa jira aan bixino online ah sidoo kale waxaa jira advanced courses aan bixino marka kulligu wax wada qaab marka qaabka aad u access gareyn lahayd casharadaada ayaynu halkan ka arkaynaa marka walaal marka koobaad internetka aad ku xiratid internetka laptopkaada ama computerkaada waxa aad isticmaalaysid halkan waxa ku qoraysaa sahalun.com sidaas maartay URL ku qoran sahal un oo university laga soo gaabshay.com sahalun.com saas u galaysaa marka internetka hadda hadba xawaariisa ku xiran tahay sidoo kugu soo baxaan hadda mobilka ayaa ku xirtay marka inta badan oo iska fiican ay hadda waa iska fiican yahay ma sha Allah marka walaal marka kadib waxa tagaysaa halka ay ku qoran tahay register iyo dashboard ardayga cusubna wuu iska diiwaan gelin karaa ardaygii horena wuu ka geli karaa marka halkan informationada waa aqrisan kartaa jaamacadda departmentyada ay bixiso degree programmingska ay bixiso informationada jaamacadda la xiriira waxyaabo badan ayaad maartay halkan hadii ay yiraahdo aad maartay aad ka daacan kartaa ka xagga register ay ku qoran tahay ayaad maartay insha Allah aad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufatid register and dashboard halkan insha Allah waxaan isku dayaynaa ardayda kamid oo kale inaan maartay ku galno informationkiisa ardayda kamid oo kale ku galno hada Saciid Omar oo kale Omar 1 Saciid Omar 1 qofku inta badan halka wuxuu gelinayaa emailkiisi halkan wuxuu gelinayaa passwordkiisa marka kan waa iska testi passwordkiisa baan gelinaynaa halka waxaan leenahay marka login marka qof walba halkaas wuxuu gashanayaa emailkiisi iyo hadii ilaahay ku idmay password remember na dhihi kartaa boga si aadan maartay hadii ilaahay ku idmay save ba dhihi kartaa si aadan hadhow aadan marna u waayin marka hadda save waxa muhiim ah kadibna waa arataa ardaygii halkaan waxa ku soo baxaysa ardaygan wuxuu roogreysan yahay koorsadan CCNA koorsada marka koorsa dhameystiran qofku marka wuxuu ku dhufanayaa iyada laftirkeeda ku dhufanaysa ama view course ku dhufan kartaa iyadii buu ku dhufanayaa dhag halkaas ku dhufatay saas hadda koorsada ugu dhex jirtaa koorsada casharada iska akhrisan kartaa shahaadada heli doontaa hadhow marka aad dhameysatid baartiyadii kala duwan marka koorsada aad soo aragtid qaybta koowaad baartiga 1 intaan cashar ka kooban yahay baart 2 intaan cashar ka kooban yahay baart 3 intaas ka kooban yahay baart 4 intaas ka kooban yahay baartiga ugu dambeeya waa kan marka baartigan inta badan free ma aha oo dadku inta badan ma helaan fiidiyoyada inta kale waxa laga yaabaa inay isaga jiraan in dadku arki karaan laakiin baartigan waxa weey waa resourceska marka saddex qaybood u baxa ardada only premium ka ah oo isdiiwaan geliya bas baynu siinaa baartigan marka qofku wuxuu arki karaa sa aragtid casharadii oo dhan halkan uu kala deegi karaa casharadii oo qoraal ah oo waliba kuwii wax laga dhigayay weeye casharo oo ma aha haddana hadii koow sharaxaad iyo hawlo ka raba وعشرة واحد لقى لي عشر كمعلم كاستعمالي سيبا أنا جو أنا استعمالي تاسواتا كان لبعض نوع عرتي ومحي لاب ماتيريال كان واحد ويا لاب كيوي عشرة دي أو لاب كي بكوجش ريميشن مركب لابكم محو كدي جاي يعني مركب ما دام براكتيكال ماشي اللي سمينا يو أو واحد براكتيس كرينا يو كورر كي لقرية هذا 10 واحد سوينا EHRB كور كيسي أيام إيش وجرا 10 واحد سوينا switch configuration initial configuration 10 initial configuration ka laabkii oo laftirkiisa oo sawiran oo koorkii qoran yahay marka waxa ku fududaanaysa casharada muuqaalada horta qofku waxa wanaagsan muuqaalada qofku inuu daawado muuqaalka kala sameeyo laakiin lacala haday kugu soo adkaato reference ayaad maartay halkan laabka uga qaadanaysaa koorkii aan macna meesha laga sameeyay hadii global mode laga sameeyay sidii u qoran oo nidaamkiisa diyaarsan waxa kale oo ku raacaysa software xaqana software-ki wax lagu practice gareynayay software kan dhaamkii halkan ku jira kala dagaysa software kan wax kala ma aha waa software meeshaad maartay switch iyo router dhowr kun oo dollar aad soo gadan lahayd si aad practice u samaysid software kan ayaad maartay free ayaad la dagaysaa oo marka aad ku practice gareynaysaa software kan waxba kama duwana maxaa la yiraahdaa waxba kama duwana hadii la ku idmayo barnaamijkii qofku isticmaalay waxba kama duwana marka asaga laftirkiisa qaabkaad oo install gareynaysid iyo marka la soo degtid isagana waa ku raacinaya hadii la yiraahdo وهاك مركز software-ki waa kan backup tracer bariyada software-ka la degi doontid software-kan qaabkan lagu shubanaysa double click hadan eri waa kan 7.2 weeye waa version dambe oo cusub marka waxa leenahay accept next baad leedahay next magacii iyo folder-ka xaga waa maxay waa meeshii aad ku shubanaysay waa magacii create shortcut inuu maartay inuu sameeyo shaashada kadibna waxa leenahay install waaba intaaba backup tracer-ka aad maqlaysid marka sidaan hore idin kugu tilmaamay backup tracer-ku waa meel dhameystiran oo ku fududeynaysa ama waa software
simulation software oo kuu fududaynaya inuu wixii isu ekaysiiyo. hadda example somaad arag game la dheelo markii qofku diyaarad u baranayo marka gamekii oo sida diyaarad caadi ah baad dhex gelaysaa. marka inkastoo tan gamekii saas aysan ahayn oo kasii fiican yahay waxa weeye hadda switchkii oo kale okay yes baan dhahaynaa switchkii oo kale lama joogtid ya laakiin oo switchkii gacanta kuma haysid laakiin waa maxay waa switchkii oo rasmi ah wey switchkii oo rasmi ah configurationkii waa iskala mid waxba kuma kala duwanaa. meesha marka aad 20,000 $30,000 oo dollar oo qalab ah soo gadanaysaa wax u baraadsigaraysid ilaa hadda practice baad rabtaa switchadii iyo routeradii iyo wixii oo dhan xaggan ay kugu jiraan codekii aad ku qori jirtay switchka sidiisa ugu qoraysaa. haddii aad marka wax isku xiraysid adigu waxba dareemi maysid just hal difference baa jira oo switchkii caadiga ahaa iyo kan u dhaxeeya. differencekaas waa maxay switchka caadiga waa taaban kartaa halka kan uu yahay switch halka ku yaal. marka dad abrat switchkan sida loogu shaqeysto ama routerkaas sida loogu shaqeysto ama wixii la mid ah sida loogu shaqeeyo yani shaqadii rasmiga ahayd waa taqaanaa kaliya waxa ka dhimanaanaya berri ka maalin inaad switchka dabka gelin karto daari karto intaana cilmi weyn ma switch dabka gelin la daarayo wax dhib badan ma switchka waxa gala port switchka inta badan siskada iyo routerada sida waxa gala fiilada caadiga oo computerka gasha fiilada power cable-ka computerada caadiga desktop-yada ayaa gasha oo kale marka taa un baa gelinaysaa waa daaraysaa bas markaana waxaad ku xiranaysaa console cable-kaadi ayaad ku xiranaysaa sidaasaad markaa ku configure garanaysaa laptopkii ama ugu xiranaysaa computerkaadi ugu xiranaysaa. waaba intaa marka aad configurationka soo gaartid configurationkii aad ku samayn jirtay packet tracerka iyo kan waxba kuma kala duwanaa waa the same. marka waa adigoo shaqadii haddaad tahala ku taqaanay xaggana hadhow caadi ugu taqaanaa waxba kuma kala duwanaa. technically anigan hadda idila hadlaya waxaan kusoo bartay kanaba kusoo bartay markaan practice gareeyo kan kusoo fahmay markii dambe oo aan shirkad ka shaqeeyay oo barnaamijkan aan si rasmi ah u dhex galay wax dareem ah ama isbedel ma dareemin ama inaanan aqoon xitaa ah waxaan baqdin ah xitaa ima gelin wixii sidaan u aqaanay sidii baan u configure gareeyay. marka I hope inaad maarteen aad fahanteen in maartay kani barnaamijkani uu sidaas muhiimadiisa u leeyahay. ka packet tracer waa software insha Allah aad casharada practicalka igala sameyn doontid casharada practicalka oo dhan halkaas aad igala sameyn doontaa markaan videoyada daawanaysid cashar walba oo practical ah halkaan aad ku sameyn doontaa adiga. haddaa switch soo gadgadatid iyo router lacag haysatid badan taa ma aqaan laakiin haddii kale halkaan ayaa adduunka oo dhan ku sameeyaa wax ma aha Soomaaliya dadka jooga kaliya ku sameeyaa waa caalamka oo dhan qof walba network baranaya wuxuu ku isticmaalaa siska packet tracerka ayuu ku isticmaalaa. marka I hope inaad fahantay وهجاك مركز هذا يسقي وينو سوكعية هدي له يرادو باك تريسر كي أيين مركز إن شاء الله رجينا إنه مارتينو سوكعه نوعا 7.2 مربان مالها استعمال لكن أنت بدأ هذا ما استعمال شرين مركز ونوع عصب ونوع فيرشن دمبوي أوكي فيرشن دمبو عصري أسي وقول بدين okay waxaan naga rabaa inaynu samaysano user iyo password ayuu naga rabaa. waa hagaag marka inta badan hadda waxaan doortay guest login ayaan doortay marka insha Allah haddii kan xogaa soo moodaa inuu complex inuu noqon karo wax iska isticmaashan insha Allah 6 iska isticmaal 6 point xogaa marka 6ka technically soo loogu shaqeeyo waa isla meeshii nagas finish iyo marka soo kacistidna waa sida kan oo kale kaliya xogaa kan markuu bulugan yahay xogaa cagaar kaas oo kale yahay marka waa inta soo kale laakiin wixii kale waa isku mid. marka saa aragtaan laga waxa ku yaala network deviceski xaga waxa ku yaala end point-gi xaga waxa ku yaala components si kala duwan xaga waxa ku yaala fiilooyinadii. marka example hadda waxa dhahdaa computer hadda waxaan rabnaa inaan switcher soo qaadano marka halkan switchskiina waa kuwan routerkii oo kale waa kan routerkii inta badan kan oo kale aan ku sameeynaa ya halka dhigo asan dhigaynaa hagaag routerkii waa kaas soo dhignay switch baan soo qaadaynaa sidoo kale ya switch 2960 waxaan kaloo soo qaadaynaa computer waayahay waxaan kaloo soo qaadanaynaa haddii ilaah yiraahdo switch oo soo qaadanay computer oo soo qaadanay computerkii aan soo qaadan computerkii waa kan any devices
hala computer baa ku jira PC computer caadi ah oo kale marka hadda u fiirso laba computer kalena soo qaado okay laba computer soo qaadayna inta badan network saas kale inta badan u dhisan yahay switch iyo computerada inta badan waxay ku xirmaan switchka waxaan de horta cilmi ahaan badan baran doontaa laakiin yani hadda waxaan ku tusay kaliya bahalkan sida loo isticmaalo hadii la yiraahdo marka hadda saa aragtid switchkan iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno computerkan marka kan connectionska fiilooyinka waa kan fiilooyinka laba dhowr nooc baa jira tan oo kale waa maxay straight line ka marka isticmaalayna fiiladan waa fiilo caadi ah meeshaad fiilo samaysan lahayd intii sida loo sameeyo ahayd baa ka maqan sida loo sameeyo iyadoo muuqaal ah ayaan ku tusayaa insha Allah xaafadaada aad jooga ayaad samaysan doontaa hadii la yiraahdo ka halka ku dhufo number 2 baan kaga xidhnay kana waa aragtaan waxaan kaga xidhnay maxay kana waxaan kaga xidhnay number 2 ayaan kaga xidhnay marka saaratid switchka waan ku dhufanaynaa okay switchka saarat waa kan switchka caadi ahaan taas weeyay ayaa marka rasmi ahaan la joogtid ayaa wajigiisi waa kan in 24 god baa gashay hadda kan 48 asoo aba jira moojulo kala duwan ma jira halkaana waa aragtaan waa command line interface-kiisi waa configuration-ki meesha koorka ku qori layna waa halkan saaratid switchka waa kan waa ku jirnaa iskada lagu sheegay waa kan waxa haasaa kood loo qoraa koorar kala duwan si loo qorqoraya okay taas configuration loo fiirinaya switchka caadiga ah marka waxa la baranayo ugu weyn ugu culus waa configuration-ki switchka sida looga sameyn lahaa kala duwan kana waa maxay router-ki configuration-ki soo arta router-ki inuu leeyahay configuration-ka noo baan leenahay enable baan leenahay router-ki sidii baan ku qoraynaa ramba iska dhigi karta wuxuu xarta dhigi karta iska soo xid computer-kana waa aragtaan computer-ka hadda IP hadaart inaad geliso computer-ka ilaa wax kale kama rabno ilaa computer baran mayna meeshan waxa la baranayaa networking soo computer-ka muhiimadiisa ugu weyn maxay tahay muhiimadiisa ugu weyn waa maxay waa inuu leeyahay meesha network laga gelin lahaa qaabka network u biin gareyn lahaa waxa waa inuu leeyahay soo hadda computer-ka waa aragtaa desktop tag hadda computer-ki waa aragtaa computer-ka soo dhan waa kooban yahay shaashadiisa kala duwanaa SSH-kiisi wixii practical u baahnaa weeye wireless-kiisi soo IP baan tagaynaa ilaa IP u baahnaa inaan computer gashano IP-ga saas u siisanaysa 1.4 baan siinay okay kan kalena waxaan siinaynaa IP baan siinaynaa okay desktop tag IP 192.168.1.5 hadda waxba diiradda ha saareen waxaan gelinayaa waa maxay laakiin waxa waa maxay hadhow lacala hada u baahatid qaabka u sameyn lahayd ay weeye un kaliya laakiin wax weyn oo kale ma ah okay marka waa aragtaa hadda IP waa siinay labadan computer ma isbeen gareyn karaan hadda way isku xiran yihiin Soomaa fiilooyinka ilaa qaabkii systemka inoo fadhiya xaganimo bingide 192.168.1.4 Soomaaliya reply buu leeyahay waa shaqeynaya 1.5 na waa maxay midna anaka ku xiran midna saaxiibkeen baa ku xiran labadaba been gareys ma karaan marka network concept-igi wax alaala wixii practical aad u baahnayd oo dhan halkan si dhameystiran baad u arkaysaa kaliya waxa ka dhimanaan doona hadhow fiilooyinkan afka si loo sameeyaa fiiladan xagee laga soo gataa si loo isticmaalaa afka xagee laga sameeyaa waxa waa arki doonaa iyadoo practical ah aan soo sameynaya ayaan idin ku tusi doonaa hadii la yiraahdo laakiin waxa muhiim ah inaad casharada sida u kala horeeyaan u qaayatid online israacid ana hadda gaas baan ku galay kan waxaan filayaa gaastiga in wax badan lagu isticmaali karo ayaan rajeynaya oo xataa gaastiga lagu shaqeysan karo maybe in lagu shaqeysan karo xataa rajeynaya marka gaastigan balkan ku isticmaal tijaabi hore oo ma isticmaali kan laakiin waa kale version dambe hadda iska arkay inuu la soo degayaan iska arkay version kan marka waxa kale oo jira sigiska iska isticmaalka sigiska inta badan kan casharada inta badan ku sameeyo weeye isagana waa isticmaali kartaa kanina waa isticmaali kartaa insha Allah marka waxaan rajeynayaa waxa muhiim ah inaad casharada si u kala horeeyaan u daawatid daacadna u noqotid qalniga buug soo qaadatid waxyaabaha noodka muhiimka ah qorqoratid pointyada muhiimka ah qoratid ku calcalisid fahantid maxaa la yiraahdaa meelaha practice-ka ah si joogto ah u sameeysid ha israacin casharadan aad practical-kooda israacisid waa ku wareeraysaa marka waxa muhiim ah maanta oo kale marka mid aragtid ina isla markaaba aad sameeysid kataana maartay wax badan bay ku fududeynaysaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maartay koorsada barbirow fiican aad kala qabsan doonto insha Allah aad bad maasantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa engineer Abyad iyo bahda Sahal University iyo guud ahaan Sahal Software oo idan leh aad bad maasantiin nabadino